السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركة للسودة واضح أدي هذا ومهتسدهين مغالكا وحرب أين ندي كل وذاقو أرمى الدورة مدحوين ترامب oo NATO ku tilmaamay in ay yihiin fulayal Mareykankuna wax xasuusnaan doono arintaas waa idin la wadaagaya bartiisa True Social ayuu ku soo qoray wasaaradda gaashaandhigga waxay Congress-ka weydiisanaysaa lacag gaaraysa 200 oo bilyan oo dagaalka Iran ay ugu baahan tahay arintaas xubnaha labada xisbi maxay ka yiraahdeen lacagtaasi marka la barbar dhigo toddobaadkii ugu horeysay lacagta ku baxday dagaalkan oo Mareykanka uga baxday iyo 13 sano oo Mareykanku Ciraaq ka dagaalamay lacagta ku baxdo marka la isbarbar dhigo iyo waliba Trump ololihiisii ahaa lacagaha dawladdu ay qarash karayso waan yareynaya lacaga fara badan oo arrimaha bulshada loogu talagalay ama la jaray ama hadda la qorsheynayo in la jaro halkee lacagtan 200 oo bilyan ay ka soo galaysaa waan idin la wadaagaya Mareykanka oo qiranaya mid kamid ah diyaaradihiisa dagaalka ee ugu casrisan ee F-35ka in Iran ay gantaal la heshay waxana ay sheegayaan in pilotkii saarnaa xaaladiisa ay degan tahay diyaarado dhowr ah ayaa Mareykanku uu ku waayay 3 toddobaad ee ugu horeysay ee dagaalkan uu socdayna waan kula wadaagaya bal ka waran haddii aad wadanka sharci darro inta aad ku soo gashay Mareykanka garsooro uu kugu amray in aad wadanka ka baxdo laakiin aad sii joogtay oo dawladdu ay lacag ganaaxa ku dul dhigtay maalin kasta oo aad wadanka sharci darro ku joogtay lacag ku dhawaad 2 milyan ku dhow waraaq ka socota dawladda hadii ay ku timid oo lagu leeyahay bal ka waran lacagtaasi ay dawladdu kugu leedahay inaad iska bixiso ayaa laga doonayaa bal maxaad sameyn lahayd qof ay ku dhacday ayaan arintaasi idin la wadaagaya oo qareenkiisa uu ka hadlayo balse marka hore soo dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran hadda waxa uu ku jiraa toddobaadkiisii saddexaad maanta waxaan filayaa inay tahay maalintii 21aad maxaa yeelay 28kii February ayuu bilowday maantana March waa 20 marka madaxweyne Trump ayaa bartiisa True Social-ka qoraalkan goordhow ku soo qoray oo uu ku tilmaamayo NATO in ay yihiin fulayal oo ay cabsadeen waxaana yiri Mareykanku waligii waa wada xasuusnaan doona Trump wali waa uu ka sabri laayahay in isbahaysiga NATO ay diideen inay gacan ku siiyaan furitaanka marinka Hormuz iyo in maraakiibta halkaasi ku xaniban la soo marsiyo marinkaasi si shidaalka iyo alaabaha kala duwan ay wadaan ee caalamka u gaarsiiyaan Trump wuxuu leeyahay in Mareykanka la'aantiis NATO waxba ma ahan ayuu leeyahay waa shabeel warqad ku taagan oo kale paper tagger waaye ayuu leeyahay sidoo kalena waxa uu sheegay ma aysan doonayn inay nagu la soo biiraan dagaalka aan kula jirno sidii aan u joojin lahayn Iran oo hub nuclear leh waxa uu sidoo kale sheegay hadda military ahaan waan guuleysanay ayuu Trump leeyahay dagaalkuna wali waa uu sii socdaa waliba lacag 200 bilyan ah waan idin sheegi doonaa ayuu hadda Congress-ka uu ka dalbanaya waxa uu leeyahay sidoo kale in wadamadan wuxuu yiri wax qatar ah oo yar ma aysan ka soo gaarin laakiin waxay ka cabanayaan sicirka shidaalka oo aad u sareeya taasi oo lagu qasbay in ay bixiyaan laakiin ma doonayaan inay nagu caawiyaan in la furo marinka Hormuz ninkan wali waa uu calaacalaya wuxuu leeyahay NATO arintaasi waa nagu fiirsadeen waxay u baahan tahay uu leeyahay in militariga la dhaqaajiyo bas oo halkaas dhinacaasi si fudud loo geeyo waxaana uu sheegay taasina waa sababta kaliya ee sicirka shidaalku uu wali u sareeyo isla markaana ay ayagana aysan ugu fududeyn in ay qarashkaasi bixiyaan isla markaana ay ka qayb qaataan furitaanka marinka Hormuz marka waxa uu leeyahay waa qatar aad u yar macnaha isagoo fududeysanaya laakiin NATO waxay leeyihiin inuu dhiiqada adiga aad ku jirto anaga lugaha aan noo gelinin marka waxa uu yiri waa fulayal Mareykankuna waligii arintan wax xasuusnaan doona arintan kama sabri doono uu leeyahay NATO in mudahan garab taagnayn xitaa Ukraine uu dhihi jiray dagaalkaasi ma waxaan ku joojinayaa 24 saac ugu horeeya marka la doorto hadda sanad ka badan ayuu joogaa walina waa uu joojin laayahay hadda waa kan waliba sidoo kale credit ku sheeganayo dhahaya NATO iyo Europe waxaan ku caawinay dagaalka Ukraine laakiin markii aan u baahanay garabkeena waa ay ka baxeen ninkan wali calacalkiisa ayuu wadaa dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth shalay shirkii jaraa'id uu qabtay waxa uu sheegay lacag 200 oo bilyan oo dollar ah in Congress-ka ay ka doonayaan dagaalkan Iran ay u doonayaan arintaas waxa uu sheegay xitaa waxa la yiri laga yaabaa lacagtu inay intaasi ka badato marka
madaxweyne Trump ayaa sidoo kale arrintaasi la weydiiyay ha uu yiri waa run waan u baahanahay lacagtaasi waliba ciidankana waan ku dhisaynaa dagaalkana waan ugu baahanahay marka waxa la leeyahay toddobaadkii ugu horeeyay Mareykanka 11 bilyan ayaa dagaalkan uga baxday marka maalin kasta 1 bilyan ka badan ayaa ku baxaysay marka arrintan xitaa xubnaha Congress-ka oo markii hore Trump uusan kala tashan markii dagaalkan uu qaadayay ayaga nafsad ahaantooda la yaab ayay la noqotay markii wasaaradda gaashaandhigu ay shalay tiri 200 bilyan ayaan ugu baahanahay dagaalkan marka waxa la leeyahay dagaalkii Ciraaq oo Mareykanku 13 sano uu ku jiray 4 meelood marka loo dhigo lacagta ku baxday meel kamid ah waa lacagtan 200 bilyan oo hadda wasaaradda gaashaandhiga ay dalbanayso dagaalkii Ciraaq 815 bilyan ayaa ku baxday 13 sano oo Mareykanku uu ka dagaalamayay marka barnaamijyadii Trump waxaan ognahay markii la doortay in uu bilaabay in lacagaha uu dhimo isla markaana uu yiraahdo in lacagaha fara badan oo dawladdu ay qarash gareynayso waa in la dhima bal waxay horta ila daawada wasiirka gaashaandhiga hadalkii uu ku dalbanayay lacagtaasi uu leeyahay si aad dadka xun aad u disho waxaad u baahan tahay lacag as far as $200 billion I think that number could move obviously it takes money to kill bad guys madaxweyne Trumpna sidoo kale isaguna waa uu ku raacay oo ma uusan dhihin lacagtaasi way badan tahay amaba way yar tahay waxa uu sheegay inay lacagtaasi u baahan yihiin sidoo kalena dhisitaanka militariga Mareykanka ay qayb ay ka qaadanayso Trump oo isaguna ka hadlayay arrintaasi waxa uu yiri Mr. President, if the war is almost over, why is the Pentagon going to ask Congress for an additional $200 billion? Well, we're asking for a lot of reasons beyond even what we're talking about in Iran. This is a very volatile world. So we want to be sure, and it's a small price to pay to make sure that we stay tippy top. marka lacagaha dhinaca arrimaha bulshada ku baxaya oo dawladdu ay dhintay ama hadda kadib ay dhimayso waxa kamid ah isnaabka waa kaarka cuntada dadka la siiyo oo aan shaqeynin 186 bilyan ayay dawladdu doonaysaa muddo 10 sano inay ka jarto Medicaid-ka oo kale waxa ay doonayaan 536 bilyan muddo 10 sano inay sidoo kale ka jaraan kontraktiyada dhinaca hay'adda xakamayso cudurrada faafa ee CDC-da 2.9 bilyan ayay doonayaan in ay ka jaraan wasaaradda waxbarashada waxa la soo jeediyay 12 bilyan in laga jaro public health-ga caafimaadka dadweynaha lacagaha ku baxo 12 bilyan ayaa sidoo kale la soo jeediyay clean energy-ga in tamar nadiif ah la helo Mareykanka mashruucyada ku baxaya 8 bilyan ayay dawladdu ka jaraysaa macadka caafimaadka waxa ay dawladdu ay ka jaraysaa 18 bilyan already waxa la leeyahay 3.8 bilyan ayaa laga jaray in rental assistance-ga dadka lagu caawiyo kirada oo aan iska bixin karin sidoo kalena 26.7 bilyan ayaa sidoo kale laga jaraya dadka sida ku meel gaarka iyagana qoysaska u baahan in laga caawiyo dhinaca kirada iyagana sidoo kalena 7.4 bilyan 7.4 bilyan ayaa laga jaraya Jali Care Development-ga fund lacagaha loogu talagalay caruurta 2.4 bilyan ayaa laga jaraya social services-ka sidoo kalena adeegyada bulshada 870 milyan ayaa sidoo kale laga jaraya marka dawladdu lacagahaasi ayay arrimihii bulshada ay ka jaraysaa laakiin 200 bilyan waxay u doonayaan in dagaalkan ay ku bixiyaan sidoo kale xubnaha labada xisbi ee Republicaanka iyo Dimuqraadiyiinta shalay arrintan la yaab ayay ku noqotay markii hore ma uusan kala tashan Trump iyo xulufadiisu ay dagaalkan ama wasiiradiisu ay dagaalkan ay qaadayeen laakiin hadda waxay leeyihiin xubnaha Lisa Murkowski oo Alaska laga soo doorto oo Republicana iyo Richard Blumenthal oo Dimuqraadiya oo laga soo doorto gobolka Connecticut labaduba waxay leeyihiin waxay leedahay Lisa Murkowski lacagtan horta waxaan u baahanahay bal inaan ogaano ka hor inta aan la weydiinin meesha ay ku baxayso bal in loo sharaxo sidoo kalena Richard Blumenthal waxa uu leeyahay shacabka Mareykanka horta waxay xaq u leeyihiin bal in loo sheego dagaalkan ujeedada loo qaaday ka hor inta lacagtan 200 bilyan uusan Congress-ka oo wasaaradda gaashaandhiga aysan weydiisan labadooda oo arrimahaasi ka hadlayay labadan xildhibaan midna Republican yahay waa Lisa Murkowski oo Alaska laga soo doorto iyo Richard Blumenthal oo isagana laga soo doorto gobolka Connecticut waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya It needs to not only be presented the amount but the rationale behind it. I think they need to come clean with the American people before they ask for $200 billion. dhinaca kale Mareykanku waxa uu qirtay mid kamid ah diyaaradaha ugu casirsan ee dagaalka ee F-35ka oo 100 milyan midiba ay joogto xitaa waa diyaaradaha ka dhuunta raadaarka oo raadaradu aysan soo qaban karin in ay Iran wax ay ku dhufteen ilaa hadda wax ay ku dhufteen lama sheegin arrintan waxa ay ku soo beegantay saacado kadib markii Trump uu yiri hawada Iran sida rabnaan u dul marnaa
meeshii aan rabno ayaan weerar ka fulinaa cid xitaa xabad nagu soo ridaysa malahan ayuu yiri isagoo sidaas yiri ayaa diyaaradan waliba Iran 4 ayay sheeganaysaa laakiin Mareykanku tan kaliya ayuu qirtay waxaana uu sheegay diyaaradan si nabad ah ayay ku soo degtay isla markaana dowladihii waday waa uu nabad qaba xaaladiisu waa ay degan tahay kulli waxba gaaray dhaawac intuu leeyahay lama sheegin laakiin xaaladiisu waa degan tahay yiraahdeen Iran marka 4 ayay sheeganaysaa si degdeg ah ayay diyaaradaasi ku soo degtay toddobaadkii waxaan ognahay mid kamid ah diyaaradaha tankriska oo shidaalka qaado oo KC-135 la yiraahdo in Iraq lagu soo rido 6 askari ay ku dhinteen March koodeed waxaan ognahay 3 diyaarad oo dagaal kuwa F-15 ka in gantaalo ay Kuwait isaga difaacayeen gantaalada ee diyaaradaha droniska Iran inay ku dhaceen oo la yiraahdo xabad saaxiib ayaa soo rido 3 diyaarad oo F-15 ay halkaas Kuwait ku soo dhaceen laakiin 6 duuliye ee waday ay ka badbaadeen sidoo kale waxaa jirta in 4 diyaaradood oo kuwa iyaguna shidaalka xambaaro oo diyaaradaha hawada ku siiya dagaalka in Saudi Arabia iyagoo fadhiya garoonka ay gantaalo ay Iran ku wartay iyagana waxyeello ay soo gaartay marka qasaarooyinka dhinaca diyaaradaha ee soo gaaray Mareykanka aad ay u fara badan yihiin sidoo kale xitaa markabkii weynaa ee Gerald Ford oo diyaaradaha xambaaraya waxa la leeyahay isagana jug ayaa gaartay walow Mareykanku wali arintaasi uu si cad u sheegin waxa la leeyahay hadda dayactir ayaa ku socdo jug xoogan ayaa gaartay marka qasaare fara badan ayaa Mareykanka dhankiisa jira laakiin waxay u muuqataa Mareykanku inuusan si toos ah shacabka Mareykanka maadaama ay guux badan uu ka jiro oo la leeyahay Trump sababtoo dagaalkan u qaaday waxa ahayd arinta Epstein inuu qariyo ay faylkii sirta Epstein file ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu isaguna xalay shir jaraa'id qabtay waxa uu sheegay in go'aankii ay ku weerareen goobaha shidaalka Iran ee go'aankaas kaligood gaareen walow warar ay soo baxay sheegayaan in Mareykanka ay ku wargeliyeen Trump marka waa kii bartiisa True Socialka ku soo qoray xanaaq darteed ayay Israa'iil weerarkaasi goobaha shidaalka ee Iran ay ugu qaaday shirka jaraa'id marka waxa uu sheegay go'aanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil go'aankaas inay kaligood gaareen madaxweyne Trump uu yiri mustaqbalka waa inaad joojisaan inaad weerartaan goobaha shidaalka ee Iran maxaa yeelay iyadu waxay ka argoosanaysaa wadamada bariga dhexe sida Imaaraadka Kuwait Qatar iyo sidoo kale Sacuudiga oo goobo fara badan ay weerartay sidoo kale Netanyahu waxa la weydiiyay in iyagu Mareykanka ay ku qasbeen dagaalkan inuu soo galo marka wuxuu yiri ma jirto cid inagu aan ku qasabnay bal ii sheeg uu qofka madaxweyne Trump u sheegi kara oo dhihi kara go'aankaasi adigu gaar maxaa yeelay isaga ayaa go'aankiisa waxa uu sidoo kale sheegay in uusan marin habaabin shacabka Mareykanka maxaa yeelay Trump waxa uu ogaa qatarta hadii Iran hub nuclear ay sameeyso waa kan bal Netanyahu oo labadaasi arrinba ka hadlayay isla markaana iska difaacayay in Mareykanka uu dagaalkan ku qasbay iyo sidoo kalena in iyagu kaligood go'aanka ay lahaayeen goobaha shidaalka ee Iran ay ku duqeeyeen Trumpna uu ka codsaday inaysan mar dambe aysan duqeyn Israel acted alone against the Slawiya gas compound. Fact number 2, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. That is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. Well, I misled no one, and I didn't have to convince President Trump about the need to prevent Iran from developing its nuclear program. ugu dambeyntii bal ka waran hadii wadanka intaad sharci darro ku soo gashay garsooro uu kugu amray wadanka inaad isaga baxdo laakiin aad sii joogtay kadibna dawladdu maalin kasta oo markii lagu amray garsooruhu kugu amray wadanka inaad ka baxdo maalin kasta oo kamid ah lacag ganaaxa lagu saarayo oo lagu soo dirsado waraaq ay ku qoran tahay lacag ku dhawaad 2 milyan oo dollar ah oo dawladda Mareykanku ay ka doonayso hadaba arrintan waxa ay ku dhacday nin asal ahaan ka yimid wadanka Vietnam oo 8meeyadii wadankan soo galay ninkan magaciisa lama shaacin laakiin waraaq ka socota dawladda ayaa u timid waraaqdaasina waxa ay ku amraysaa inuu bixiyo ganaax madani ah taasi oo ah intii maalmood oo wadanka sharci darro uu ku joogay ninkaas isagoo qalqalaya markii waraaqda uu meelka ka soo bixiyay waxa uu la xiriiray qareenkiisa oo la yiraahdo Olia Katala waxaana uu sheegay in waraaqdaasi ay soo gaartay kadib waraaqdii ayuu u keenay markii ay aragtay iyada nafsad ahaanteedu waa ay la yaabtay waraaqdan lacagta ku qoran waxay tahay 1,820,352 dollar ku dhawaad 2 milyan oo dollar
oo lacag ah waaye marka ninkan waa dadkii ka soo qaxay Vietnam ilaa 80meeyadii isla markaana dawladda qaxooti ahaan oo Mareykan ku yimid isagoo 5 sano jira ayaa la keenay sidaas darteed dawladda Vietnam dadka qaxooti ahaan way diidaysaa inay wadankooda ku soo laabtaan oo baasaboor ay siiso sidaas darteed ayuusan wadankiisii uusan ugu laaban karin marka qareenkiisa waxa ay xaqiijisay ninkan in wadanka lagu amray inuu isaga baxo sanadkii 2007 oo adiga 19 sano ka hor sidaas darteed waxay tiri kaar shaqana waa uu haystay qaab sharci ah oo wadanku uu ku joogi karay uu uga shaqeysan karay laakiin waxa loo diiday magangaliyadii oo inuu wadanka isaga baxaa sidaa darteedna sanad kasta wasaaradda amniga gudaha waa uu tagi jiray oo uu check in ayuu sameyn jiray inuu wadanka jooga marka waxa jirtay maamulka Trump sharcigan marka dadka lacagta lagu ganaaxayo maalin kasta oo wadanka sharci darro ay ku joogaan waa sharci federaal ah oo horay u jiray ilaa sanadkii 1996 ayuu jiray laakiin lama isticmaali jirin bishii June ayaa maamulka Trump dib ay boorka sharcigaasi uga jafeen isla markaana maalin kasta oo qofku wadanka sharci darro uu ku joogo markay garsooro uu ku amro inuu wadanka isaga baxo waxa maalin kasta lagu jaajgareynaya lacag $998 ah sidaas darteed ayaa marka lacagtan loogu soo dirsaday ninkan oo ku dhawaad 2 milyan oo 1 milyan iyo 800 kun oo dollar ka badan marka qareenkiisu waxa ay sheegtay in hadda arintaasi ay racfaan ka qaateen isla markaana ay sugayaan go'aanka ay dawladdu ay ka soo saartay hadaba qareenkiisa ninkan oo la yiraahdo Olia Katala oo arrimahaasi ka hadlaysay waxa ay tiri It is ordered that a civil penalty be imposed upon you in the amount of $1,820,352. My client came to the United States in the early 80s, fleeing the Vietnam War, or they came as refugees from Vietnam. And they settled in the United States. So he was only 5 years old when he came. And he's in his late 40s now. He does have a removal order, but he cannot leave. So he does have work permits, and he is here in the United States legally. He has had regular check-ins annually. It's astronomical. I don't know anyone who has $1.8 million just laying around. And so surprisingly, you get this letter. It's a shocking number. That's what I tell people, don't panic. Just reach out to an immigration attorney because they know about this. And they can help you out. They can, you can appeal this process. marka dadkeena Soomaalida ah hadda wadanka jooga sharcigaasi waa u jira hadii garsooro uu kugu amro inaad wadanka isaga baxdo oo aad sii joogto maalin kasta oo aad wadanka sharci darro ku joogto kadib markii lagugu amray inaad wadanka isaga baxdo oo final removal order lagu siiyay $998 ayaa maalin kasta oo ganaaxa ayaa kugu socdo marka sidaasina ula socda aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa sida iyo nabadgelyo